السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أمد الصوماليات وايد سلامي سلام دبديت وحان رباه إن نحير كده أرين ودوانها نصو هذا القاضي شيخ محمد عبد أمل شيخ وينا أرين تاسوا أرين تهاي إن دبان تلقو برارجو محايا لو وح مسيري أمد waxyaabo jiilalka dambe saameey doona way sida la ajligeed waxa loo baahan yahay in culimada warkooda la qaato oo waxyaabaha riskiga ah oo mustaqbalka dambe ummadda waxyeeleynaya laga digtoonaado oo hadii ay qabasho leeyihiin laga daba tago oo la qabto sheekhu wuxuu soo hadal qaaday arin ku qoran baasaboorka Soomaaliya iyo idiyada la socdo baasaboorka arintaasi dhab ahaantii waa arin ay tahay in si sax looga howlgalo oo wax la iska weydiiyo sheekhu wuxuu leeyahay waxa cajiib ah in dawladaha Afrikaana oo muslim ahayn inay diidaan waxyaabaha qaar ay still ama wali ay ku dhiiradaan dawladda Soomaaliya inay isaga qoran tahay waxyaabo gender la xiriiro erga gender waxa way in qofka loo ictibaariyo waxa qofka in loo erga gender waa in loo ictibaariyo qofku wuxuu aaminsan yahay soo rag ah inuu dhihi karo dumaraan hay aadan dhihi karin war dumar ma tiid ayadoo dumarana inay tiraahdo rag baan hay oo aadan dhihi karin war rag ma tiid see wax wada marka waa arin dhab ahaantii wax badan waxyeeleynayso dhaqanka islaamka wuxuu sheeqa wadamo fara badan sida Qatar iyo Sacuudiga iyo wadamada islaamka oo dhan waxyaabaha dhibaato fara badan ay ku hayaan wadamada gaalada khaasatan kuwa Afrikaanka way diideen mana qortaan erga gender marka say ku dhici kartaa in dawladda Soomaaliya ayagoo professor iyo madax iyo doctora iyo waxa sheeganayo inay macnaha wali iska haystaan gender ay dhigooda ugu qoran tahay oo aanan waxba laga bedelin arrinkaas waa arrin cajiib ah oo yaab badan sheekha ku keenay marka waxa aad iyo aad u jeclaan lahaa inaan sheekha idinka kala dhex baxo bal wuxuu u yiraahdaa sheekha si aan u aragno okay waxaan jeclaan lahaa meeshan waxaa ila yaala identity cardka Kenya iyo ka Soomaaliya bitaaq alhawiya iyo baasaboorka Kenya iyo baasaboorka Soomaaliya maxaa ku kala qoran bal meesha la ina geeyay baan doonayaa inaan midaal idinka siiyo cardkan waa cardka ay dawladda Soomaaliya bixisay waa kaarka aqoonsiga ruuxa Soomaaliga ah baasaboorka lagu siiyaa Soomaa waxa ku qoran marka la soo gaaro ruuxa jinsiga uu yahay waxa ku qoran kelimada Carabiga al-jins waa sax Soomaaligana waxa ku qoran ma qorna waxa qoran lab ama dhadig yaa qoran laakiin Englishka marka la yimaado luqada Englishka maxaa qoran gen baa qoran gen maxay tahay gender oo la soo gaabiyo baasaboorka ay dawladda Soomaaliya bixiso waa ka waay asagana meesha jinsiga ruuxa tilmaamaya waxa ku qoran kalimatul jinsi oo Carabiya laba ama dhadigoo Soomaaliya laakiin marka luqada Ingiriiska la yimaado waxay qorayaan gender soo waxna dagaalayna waa dawladda Soomaaliya kaarkay bixisay baasaboorkay hadda bixiso waxa ku qoran gender baa ku qoran maxaa ku yaro ku qornaan jiray ka Kenya maxaa ku qoran kan Kenya kaarka muxuu ahaayay waxa la yiraahdaa identity cardka Kenya waxa ku qoran ruuxa jinsiga uu yahay sex baa ku qoran sex kuna laba mid u doonaa
أما وحو نقدا نين أما وحو نقدا دمر ميل أما فيميل بو نقدا لكن جندر كو وكلمة عصب وكلمة كهليني كينيا لما قلنين باسبورك كينيا مركز سوق قادو سيدو كلاواي isagana kuma qorra gender kuma qorra waxa ku qoran sex ba ku qoran oo marka ama male ama female ama lab ama dhadig baasaboorada afrikaanka saasa ku qoran bal waxaad is weydiisaan dawladda Soomaaliya iyo Soomaali meesha sex maxay uga guureen oo gender u qaateen ya ما يفهمون بها سينو فهمسنين متعلمين واي waxa wax dhigay mutacallimiin waay aqoon-yahan waay luqadda iyo erebixinta way yaqaanaan isticmaalka hadda loo isticmaaliyo dhanka loo wada way yaqaanaan ceeb waay waxa noocan oo kale ah ceeb waay dawladdii dalkii muslimka ahaa dadkii muslimka ahaa inay horboodo wax yiraahdo gender maanta oo dokumentiyada ku qorto dawladihii gaaladuna ay diidaan soo ceeb weyn ma waxaan ka hadlaynaa ka weeyar dagaalka lagu la jiro ma aha inaan isu dhiibno nooroodna ma aha waana mid keenaysa dumarkii siyaasiyiinta inoo ah inay wax noocaas oo kale horboodaan oo public u horboodaan oo hatta madaxdii iyo dadkii wadanka maamulaya toona aynan hal kelima ka dhihin waxa uu ololeynay dokumentiyadiina waa lagu qortay بينما هذا تمات عالم الإسلامي دجال بالغلة شرا فكرة نعاس وكلا سعودي جا كوي توان بلد جوده هذا وحي كم مسافرين ودن ككيريان سدح كن أودت كنوع عسى كيريان ودن ومرجع كور هلا المسافرين قطر وهذا عيارها عالمي مرة ويكسر عدين ما يكون سمين ودت كنوع عسى وكلا سلام سعتان ديارة دي هودا يدو كسر جردها هودا كعليه ويدهن سوق الكرام ودن علامات دي أصلاً تودن كام مكان كريس دولتي أفريقيا قال دجال ما يقدر كيسان أوغندا يوكينيا يدولتو سيقول دجال ما يفكر كنوع حنو كلا أنا كان هنا الدوكيومنتية إنه كقرط دولة الصومالية سو عيب وين ما يا ورور كاس جارسيا لما قام يجها فردي ورور كاس عيبتين الله أستره إلهي تبارك وتعالى هينا حفظيه الدنيا أقرب الله هينا حفظيه إلهي دينتنا هينا حفظيه أخلاق دين الله ينوح حفظيه أقرض دين الله ينوح حفظيه الدون كان الله ينوح حفظيه أولاد دين الله ينوح حفظيه إلهي تبارك وتعالى فتنك آفاتك الله ينجح حفظيه شياطين تي شرك وضع الله ينجح حفظيه فتنك وحي وضع الله ينجح حفظيه مسلمين دا الله حفظيه ضلال كودية دي قامد وضع الله حفظيه فطرة وضع الله حفظيه نبت قريب بحد الله سيو من نمية دولة نماء الله سيو دين تودي كل رقماني أخلاق وضي إلى شرطنا الله سيو إلهي وحي شر وضرنا هينجا قبطه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم